agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ee nagala soo qayb galay munaasabadan mas'uuliyiinta kale bulshada rayidka gabadha ka socotay agaasimaha fanka bulshada reer Madiina ee caawa munaasabadan nagala soo qayb galay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa sharaf ii ah caawa inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan ka mid ah munaasabadihii wacyigelinta bulshada soo socday xilliyadii hadda la soo dhaafay waxay ku fiicnayd inaan waqti ka horeeya aan isugu nimaado balse howlo badan oo aan ku mashquulsanayn darteed ayay suurageli weyday inaan waqti munaasaba nimaado waa ka cudur daaranaynaa arrintaas waana ka raali garaynayaa bulshada reer Madiina waxaan rabaa si gaara inaan halkaan uga salaamo macallimiinta qur'aanka macallin Abshirow iyo macallimiinta kale ee la joogta si gaara duqowda akhyaarta nabadoonnada gabdhaha mar walba u taagan dhammaantood ayagoo isku duuban horumarinta dadka iyo deegaanada mudanayaal iyo marwooyin kulankan caawa ma noqon doono insha Allah kii ugu dambeeyay kulamo kale ayaa jiri doona waqtiga munaasab ku ah kulanka ayaan qabsan doonaa biidnillah waxaan rajaynayaa haddii Alla idmo wax badan oo soo jeedintii aad soo jeediseen talooyinkii aad noo soo jeediseen wax badan oo ka mid ah inaan ka wada hadli doono kana howlgeli doono biidnillah fulintooda kulamadeenii hore waxaad soo jeediseen sida aad la socotiin wadadan in la dhiso oo maamulka gobolka Banaadir uu dhiso wadada hay-ada ayaan sugaynay in muddo ah inay naga caawiyaan oo mar walba xabadka noo garaacayay inay noo dhisi doonaan muddo kadib waxaan ku qanacnay waxayna anagu qabsan cid noo qabanaysa inaysan jirin sidaa darteed wadadaas biidnillah waa la bilaabay wayna socotaa annagoo fulinayno codsigiinii iyo ballanqaadkii aan idin ballanqaadnay wadada waxaan dhagax dhignay meesha ay ka bilaabmayso oo ah korontada isgoyska korontada talagalkeenu wuxuu yahay ilaa xoosh inay socoto kadibna aan xoosh ka sii qaadno ilaa ex control afgooya aan gaarsiin wadada dhismaheeda waa dhaqaalaha lagu dhisaayo wuxuu noqonayaa biidnillah bulshada reer Madiina ee wadajir iyo dharkeeley iyo kaxda iskaashigooda iyo maamulka gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir qaybtii ugu horeysay ayuu bixiyay waana tan hadda lagu shaqeynayo qaybaha kalena bulshada ayaa laga sugayaa
guddiyada dib u dhiska ee ka dhisan degmooyinkan iyo maamulada degmooyinka ayaa idiin soo gudbin doona qaabka bulshadu ay uga qayb qaadanayso dhismaha waddada. waxaa laydinka rabaa marka inaan iskaashi ku dhisano waddooyinkeenna iyo meel kasta oo aan u aragno inay muhiim noo tahay horumarinna ay u tahay danta bulshadeena. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, waad maqlaysaan macallinka hadalkiisii ahaa waxaana dhibay biyaha waddada fadhiista ama magaalada fadhiista. sida aad la socotiin, muddadii aan joogay xafiiska maamulka gobolka waxaan dhisnay waddooyin dhowr ah oo aan dhammaystirnay intaan bilownay. waddooyinkaas alxamdulilah wadda hadda biyo fadhiistaan ka mid maaha. waddadan biidni illaah talagalkeenu wuxuu yahay inaan biyo fadhiisan. warta aad ka cabateen iyadana qorshahay noogu jirtaa in la maareeyo oo bulshada dhibaatada ay wartu ku hayso iyo biyaha fadhiista magaalada inaan xallino biidni illaah. goormaa biyaha warta la maareynayaa, biyaha magaalada fadhiista goormaa la xallinayaa? lama dhihi karo berrito iyo bisha soo socota, lama dhihi karo. maxaa yeelay hawshu ma ahan hawl fudud. isla markaas codsiyada waxaa ku jirtay inta aan roob imaan hala maareeyo. roobka qof meel ka furi kara tubadiis ee ka xiri karaa ma jiro. ilaahay berrito keenaa door khayaaru leeyahay. marka inaan dadaalaynaa idin sheegaynaa. wartaan keliya ma ahane warar badan ayaa jira oo caqabad ku ah gobolka banaadir. talagalka xallinta biyahaasna waa socotaaba. waxaan idin xasuusinayaa warta boondheere oo degmada horteeda ku taalay waa soo xallinay. swage ayaan u sameynay dhulka ka hoos ayaan soo marsiinay tuubooyin waaweyn. baddaana gaarsiinay ku shubaan hadda. waxaa socda mid kale oo warta number 4 lagu maareynayo oo iyadana hadda isgoolfintuune laga soo qaaday. derbiga afasyoonina hadda maraysa waddada jayga haddaa aragtiin waa arki jirtay oo si casriga loo dhisayo. ayadana talagalkeenu wuxuu yahay warta Siigaale oo immigrationka u dhow oo warta ugu liidata ah iyo midda number 4 in lagu maareeyo swage-kaas socda oo hadda laga shaqaynayo. sida howlahaan sadda aan u wado si lamid ah ayaan middaan ayadana uga shaqayn doonaa biidni illaah. hase yeeshee waxaad garan kartiin howlahaas faraha badan oo adag inaan maalin iyo labo iyo bil iyo laba bil aan lagu qaban karin. waqti ay qaadanaysaa, laakiin annaga talagalkeenu wuxuu yahay inaysan saran lagu dhaafin. waddooyinka xamar ama waddooyinka gobolka banaadir iyo maareynta warahuba inaysan saran lagu dhaafin ayaa qorshaheenu. waxaad se ogaataan taladu ma aha teenne waa midda ilaah. talagalkeenu wuxuu ahaa muddadii sanadka ahayd. aniga hadda waxaan joogaa 15 bilood, bishii 16aad hadda ii socota xafiiska. talagalka wuxuu ahaa inaan 10 laami aan dhisno sanadka gudihiisa. 10 waa la dhisi waayey coronavirus iyo biyihii faraha badnaayo
booyadaha lagu dhuraayay roobabkii mahigaanka ahaa caqabadoodii darteed tobanka waa la gaari waayey 6 aan si dhammaystirnay 3na hadday socotaa talagalka culeysyada yimaada ayay suuragal tahay inay dib u dhigaan maxaa sidaas loo yeelayaa marka dadaalkaas maxaa loola jeedaa waxaad ogtihiin 2019 bishii Agost 22-keedii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya inuu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho madaxweynaha hawsha magacaabista markuu idirayay ayuu ila dardaarmay dardaarankaas ayaa wuxuu ahaa dadkaagan magaaladaadaan aad ku dhalatay iyo dadkaagan adiga aad ka dhalatay ka hagaaji wadooyinka ka hagaaji nadaafadda ka hagaaji caafimaadka ka hagaaji amniga ka hagaaji waxbarashada dardaarankaas uu ii soo diray oo ii dhiibay hawshaas iyada ah ayaan ku guda jirnaa mana aha dhammaantood hawl fudud sida aad adunkuba ogtihiin laakiin haddana inta annaga karaankeenna ah ayaan wadnaa dadaal insha Allah aan rajaynayno dhammaan inaan ku guulaysano waxaa jira xagga waxbarashada dadaal badanaa laga qabtay waad ogtihiin waxbarashadii maamulka gobolka Banaadir ayaa la soo wareegay dhaqangalkii la soo wareegista iyo iskuuladii dawladda iyo kuwa kale oo cusub dhismahooda ayaa la wadaa ujeedadu waxay tahay ubadka Soomaaliyeed oo intooda badan aan waxbarashada helin inay helaan waxbarasho aan lacag laga qaadayn oo bilaash meesha loo socdo iyo hawsha la ii diray midaas waay xagga caafimaadka MCH ku filan degmooyinka inaan helno dhowr MCH waa dhisnay kuwana haddaan dhisaynaa wadajir waa u dhisaynaa MCH haddii aan leedmo dharkeyleyna mar dhow ayaan dhagax dhigaynaa degmooyin kale oo sidaas oo kale loo soo dhisay MCH-na way jiraan kuwa kalena waa la dhisi doonaa dhawaan biidnillah waa xagga caafimaadka waxaa noo qorshaysan oo kale inaan helno isbitaallo aan ahayn kuwa privaatiga ah oo dan guud oo bulshada u adeega ayaa ayagana qorsheena ka mid ah laakiin haddana dhammaan waxaas ma aha wax maalin iyo labo lagu gaari karo waqti ay qaadanayaan mudanayaal iyo marwooyin dardaarankaas oo ah adinka dantiinnii ayaan fulinaynaa loona arkay inaan hawshaas fuli karno annaga dhalinyaradaas hortayda fadhida waa guddoomiyaasha degmooyinka waxaan ugu talagalnay inay u shaqeeyaan bulshada sida anigaba aan ugu shaqaynayo runtii iyadoo dadaalkaas uu socdo dib u dhisku uu socdo waxyaabaha la dhisay ay ka mid tahay degmadaan hadda aad joogtiin oo aad ogtihiin khayr-beelayaasha inay dhulka la simeen ay baabi'iyeen aad ogtihiin qashinkii faraha badnaa ayaa qurunka iyo qiiqii waddada jasiiro loo aadayay meel walba daadsanaa oo taqsiga indhaha kaa gelaya meel walba ayadana in laydinka maariya waad ogtihiin meeshii wasaqda ahayd qashin qubka ahayd
meelo bilic leh meelo dalxiis ayaa loo bedelay oo hadda hawshooda ay socotaa. waad aragteen stateka ama Jazeera state dhismeed waa aragtay dhulka Caraguudka daaraha hadda laga dhisay waa la sii horumarinayaa. waxyaabahaasu howlihii annaga naloo soo diray inaan qabanno waay. dadku inay helaan nabad ay ku dhiiradaan inay magaaladooda maal gashadaan, aan la helin waddo burbursan, aan la helin meel qashin yaallo, aan la helin meel biyo iyo wasaq ay yaalaan, aan la helin bulsho bugto oo aan daryeel caafimaad haysan, aan la helin ubad Soomaaliyeed oo aan waxna akhrin waxna qorin. halka aan u socono waa meeshaas. waxaad ogtihiin dadaalkaas socda dameer xumo iyo dulinimo in lagu dhinac wado, taasoo yacni caqabada ku ah looga hortegayo dadaaladii dib u dhiska iyo amni iyo nadaafad ka shaqayntii oo aad loo buunbuuninayo loo afuufayo in magaaladan laga dhigo magaalo duunsan, magaalo colaadeed, magaalo aan nidaam iyo kala dambeyn ka jirin, oo ah meeshii aan ka nimid. dad ayay ka gashay damiirkooda siyaasadeed inay meeshaas noo celshaan maahane inaysan helayn damacooda ayagu ay rabaan. adeeg waay warkaas. waxaad ogtihiin oo run ah dowladda Soomaaliya meelo badan dalal badan ayaa gacmaysta oo quursada kala daadadkii iyo dagaalada sokeeye oo ka dhacay darteed. khayraadkeedii qaar baa iska gurta badahan, qaarna dhulkii qayb ka mid ahay yidhaahdeen annagaa iska leh, ayagoo ku tuhmaya Soomaaliya inay xilligan taag daran tahay. dowladda Soomaaliya tabaryar waa jirto, laakiin dameer adag ayaa jira go'aanay ka qaadatay kaasoo ay dowladda Kenya ugu jirtay xiriirkii diblomaasiyadeed shalay. maxaa ku xigay marka? mar haddii dadkeennii uu noqday dad ducafo ah oo aan dameer adag lahayn oo u jilicsan cadowga, kuwo annaga naga mid ah oo ayagu ay leeyihiin ayaa maantaba rabshado bilaabay. dhalinyaro Soomaaliyeed oo wejigu u duuban yahay oo dabajaxay aakyaal wata oo waa banaanbaxaynaa dhahaya, maanta ma la arkay oo baraha bulshada ma lagu arkay? waxay ka soo horjeedaan go'aankii dowladda Soomaaliya ay gaartay oo ahayd dadkan anaga dalkeena lagu haysta ee Soomaalidii inta kala qaybba mar u yeeranaya in dowladdu ay go'aan ka gaartaa dhibaysa. mashaakilaadka noocaasa wuxuu sababay oon maanta indhayga ku arkay bila ka hor laamigii aan dhisnay oo maanta taayiro lagu goomayaa lagu gubayo oo laamigii uu dhalaalayo. laami haddii dab lagu gubo maxaa imaanaya? waa dhalaalayaa, laamigii oo dhalaalaa oo taayiro lagu gubayo. maantay indhahaygaan ku arkay. waxaan wadnaa dhammaan waddooyinkii in la dhiso ay aan marno oo aan helno waddooyin nadiif ah oo aan biyo fadhin oo aan wasaq ahayn. meesha u socono waa halkaas.
cabsida aan qabo inkastoo aan uga mahad celinay bulshada Soomaaliyeed oo intooda badan ayan raacin khaladaadka oo ay aad u fahmeen dantooda haddana weli waxaa jira kuwa aan garan waxa dantoodu tahay muhiimadda dalkooda uu leeyahay wadaniyadda looga baahan yahay oo iyo xagga dalku ku leeyahay kuwa aan garan oo weli lagu sii adeeganayo ayaa jira sidaad adinkuba arkaysay cabsida aan qabo waxay tahay waddada aad codsateen in la idiin dhiso waddada aad codsateen in la idiin dhiso oo hadda dhismaheedu uu socdo adinkoo u jeeda qaar yar oo khayr beelayaalow inay ay taayeero ku shidaan lagu baabuur inay ku shidaan oo waddadii haddana ay burburto cabsida qabo waa midaas siyaasadda si fiican dhegaysta waa isjiijiid badan tahay siyaasad qori ah waa laga yimid siyaasad qalin ah oo qofku intuu xariiqo qofka uu rabo magaciisa sanduuq lagu ridahay noo joogta waqtigeedina ma foga haddii aadan ku kalsoonayn in dadku ay ku doortaan yacni in si kale iyo mushaakil kale la abuuro waa mid qalbiga ummadda Soomaaliyeed jebinaysa waxaa loo baahan yahay doorashada iyo sanduuqa in la sugo loo dulqaato si xasilooni ah qof walba oo codkiisa ku dhiibto qofkii codkaas hela oo ah qofkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qadaray bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed inay la shaqayso qof taqaana male qofta Ilaahay keeni doono ma kan hadda jooga ma mid kala laakiin iyo mawduuca qolaan oo dhibaato hadda la curiyay iyo qax iyo barakax lagu bootayn midaas waaye midda loo baahan yahay waa midaas midda la rabo shacabkaanu inuu oo muujiyo dareenkiisa ku aadan iyo sida uu diiday haddii mid wax qarribaya oo gurigaaga gubaya oo dantii gubaya uu yimaado oo aadan ka celinayn oo aadan waxu yahay dhehina aad iska fiirsanaysid maxaa imaanaya inta meerleewayaashu ayna xukumaan sidii doono ay naga yeelaan oo meeshii laga yimid ay noo naqaana imaanaysa walaalayaal dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool in wax loo qabto oo la horumariyo waxay ku imaan kartaa in dantooda guud laga shaqeeyo qof in loo quudiyo ama wax loo siiyo maanta waxaad siiso yani lama suura gelin karo dadkuna maantay waa dad wadana yar oo aan nolol ku filan haysan oo jireen laakiin maantay maalmihii la soo dhaafay waa la dhaama waxa loo baahan yahay waxay tahay yani nabad waxa loo baahan yahay nolol waxa loo baahan yahay horumar waxa loo baahan yahay dib u dhis intaas marka la helo ayay kuwa
nolosha hadda haystaana noloshooda ay kobci kartaa kuwa noloshooda ay liidatana ay heli karaan shaqo ay heli karaan. waxaa la rabaa bulshadu inay dareenkooda sheegaan, ay wixii horumar ah iyo dadaala ay garab istaagaan, wixii horumarka ka hor imaanaya dib u celinayana ay diidaana laga rabaa. waa waqti dambo, ma rabo inaan waqtigan kadib aan idinku sii daaya halkaan haddaaba la dahay. waxaa la rabaa wixii bulshada horumar u ah oo dantooda ka dhaxeeya in la isu garabsado. waddo haddii la yidhaahdo waa wax kulligood nacfigeeda la wada helayo. haddii la yidhaahdo iskuol waa wax manfaciisa la wada helayo. isbitaal haddii la yidhaahdo sidoo kale, mch haddii la yidhaahdo sidoo kale, masaajid haddii la yidhaahdo sidoo kale. waxyaabahaas la wada leeyahay ayaan anagu mas-uuliyad gaara iska saaraynaa dhismaheeda. haddii se la yidhaahdo dadkan qof qofa loo quudiyo, is-aadays iyo hebelaa loo badiyey iyo ma dhammaanayso. waxaa kaloo oo aan dhammaanayn baahideeda. maanta haddaa qofku haysiiso oo maanta kaa quudi, beri haddana waa gaajaysan yahay. laakiin laamigaa maanta dhisto berri sidiisii waay, haddii aan mid khayr beela oo kaa dumin oo uusan kaa shidin. aan isku raacno, aan isu garabsanno wixii danteenna ah, wixii horumarka ah, wixii bulshadan ka bi'i kara jahliga, ka bi'i kara bukaanka, ka bi'i kara burburka iyo baaba. intaas ayaan rabay inaan idin idhaahdo. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.